Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan saaxiibada ku xiran janaalka cabdi kheyre soo dhawaada muuqaalkan waa qayb labaad oo aan uga hadli doono aas-aaska fikirka guusha muuqaalkan waxaan ku soo qaadan doonaa 5 qodob oo aad iyo aad u muhiim ah intaan u gudagalin muuqaalka fadlan dad nagu cusubta nagu soo biir ka mid noqo saaxiibadan ku walaalnoona meeshan muuqaalka inoo laagaree si uu u gaaro saaxiibo sidoo kale u wanaagsan qaybta hoose commentaar inoogu reeb wixii fikir aad haydid siina share garee oo la wadaag saaxiibadaada mahadsanidin number 1 waxaad u baahan tahay inaad caafimaad qabtid caafimaadku waa furaha koowaad ee guushaada inaad nafsadaada daryeeshid ood ku dadaashid caafimaadkaaga waxay kaa saacidi doontaa guulo badan inaad nafsadaada usoo hoysid caafimaadkaaga ood ku dadaashid waxyaabo badan ayay kuu fududeyn doontaa noloshaadu markay tahay mid nadiif ah oo caafimaadka jirkaaga aad ku dadaashid iyo midda maskaxdaadaba waxay noqon doontaa mid nadiif ah caafimaadka maskaxdu wuxuu ka qayb qaataa inaad noqotid qof hal abuur leh hal abuurkaaguna wuxuu ku gaarsiiyaa mustaqbal hagaagsan inaad gaartid caafimaadkaaga wax walba ka hormari wax walba way isu kaa raaci doonaan oo ku hagaagi doonaan wax walba lambar 2 waxaad u baahan tahay inaad ku raaxaysid cabsida wax walba oo aad ka cabsanayso oo isku daydid ood mar walba tijaabisid shayga markii aad ka cabsatid ood uga carartid waxaan ma tijaabin kartid ma qaban kartid ama ku fashilantaa haddaad uga carartid waad guuldareysan doontaa balse tijaabi ku soco oo waxaan markii walba oo aad ku fashilmaysid waxaa laga yaabaa inay kugu jirto cashir shay walba ood ku guuldareysanaysid cashir baa kugu jira shay walba oo aad guuldarro kaa soo gaarto waxaa ka qaadan doontaa cashir waxaad ka qaadan doontaa waayo aragnimo iyo cilmi iyo caqli wax walbana waxay leeyihiin waqti iyo waayo wax walbana waxay qaataan waqtigooda number 3 waxaad u baahan tahay inaad ku adkaysato noloshaada waxay u baahan tahay adkaysi wax walba waxay leeyihiin guuldarro guul walba waxaa ka horeysa fashil noloshaada oo dhan waxaa macquula 50% in fashil ahayd 50% kalena guul ahayd 50ka guusha waxaa ka keentay 50ka fashilka waayo horey ayaan kuugu sheegay mar walba ood guuldareysatid waxaad noqon doontaa qof u dhowaada guushaada guuldarradu waxay ku bartaa wax cashir ayay ku bartaa guushuna waxay ku sii gelaysaa rajo waxay kuu sii dhoweysaa inaad waxyaabo kale aliftid ayay ku sii gaarsiisaa number 4 waxaad u baahan tahay inaad dhegeysatid dadka aad doonaysid inaad heerkooda kala gaartid oo aad doonaysid inaad levelkay gaareen oo kale gaartid waa inaad intooda badan sidii u hadlayaan sidii u sheekeynayaan tusaale ahaan waxaad rabtaa inaad noqotid nin caalimo weyn ayaa rabtaa inaad noqotid caalimkaad doonaysa inaad ku dayatid siduu u khudbeeyo oo kale siduu wax u sharaxayo oo kale ayaa la daawadaa siduu wax u sheegayo u tacliiqinayo u tafsiirinayo ayaa si fiican ayaa loo dhegeystaa siduu wax u sharaxayo ayaa la dhegeystaa marka caalimkaas waad ku dayanaysaa sooma aas ayuu ku yahay shay walba aas ayuu leeyahay adiguna caalimkaas inaad noqotid ayaa rabtaa siduu abaalkii wax u tacliiqinayo u tafsiirinayo wax walba siduu u dabaqayo inaad u dabaqda ayaa rabtaa marka waxaa muhiim ah qofka role model-ku ama aad ku dayanaysid siduu asagu wax u hagaajinayo ama wax u sameynayo oo aad doonaysid inaad adigu u habeysid waa lagu daydaa waxa uu sameynayo inta badan waa la fiirsadaa si fiican ayaa loo fiirsadaa waa la dhageystaa noloshaada si fiican ayaa loogu dabaqaa qof walba wuxuu leeyahay qof uu ku daydo annaga ilaahi subxaana watacaala wuxuu na amray nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam inaan ku dayano shiiqa siduu wax u sharaxayo aad fiirsatid wax weyn ayaa kaaga baxaya waayo shiiqu ma aha nin jilay sheeko filan wuxuu kuu sheegayaa nolosha dhabta ah wuu ku hor fadhiyaa wax walbana wuxuu kugu sheegayaa si waaqici oo dhab ah waxaan rajeynayaa inaad fahantay number 5 qof kasta wuxuu leeyahay sheeko sheekadiisana asiga ayaa ka xidig ah qof walba wuxuu leeyahay waayo iyo waqti iyo nolol u gaar ah qof noloshiisa qof kale u maamulaa ma jiro haddii aad noqotid qof noloshiisa qof kale u hibeeyey oo qof kale noloshiisa asagu yiri niyow kaale adigu noloshaada ku dabaq waxaad noqon doontaa qof noloshiisa qof walba uu daba gedin doono mar walba noloshaada u dhiirigeli waxa ku dhiirigelinayo ku dadaal waxaad u baahan tahay inaad noqotid ku dadaal micnaha dadka mar walba wax weydiisid maxaa ku dhiirigeliya haddaad tiraahdo waxay ku leeyihin waxaan jeclaan lahaa inaan noqdo qof taajira waxaan rabaa inaan noqdo qof noocaasa nin walba hami iyo rajo kuu sheegaya balse ma qaadan wadada guusha 88.8 aan dhaho ama 9 ama 9 iska dhig ma qaadan wadada guusha
waayo aad ayay u yar tahay qof u adkaysta ama u dulqaata ama u dadaala waddada guusha. Boqolkiiba boqol nin walba oo guuleysta wuxuu soo maray rafaad iyo dhibaato, wuxuu soo maray boqolaal mar. Aniga kana hadda daawanaysa muuqaalkan sameynaya, anigu muuqaalkan waxaan ku fashilmay in ka badan 10 mar. Waan duubay, waan ku celish, waan duubay, waan ku celish, waan duubay, waan ku celish. Haddii aan kuu soo duubi lahaa inta mar aan duubay, runtii waad yaabi lahayd. 10 mar in ka badan ayaan isku dayay. Waayo ma ahan shaygu wax inta iska duubtid aad iskala tegaysid. Bulsho ayaad u gudbinaysaa, wax walbana waxay leeyihiin waji cusub iyo nolol cusub. Waxaan rajeynayaa muuqaalkan inaad wax badan ka faa'iiday. Guul iyo barwaaqo ayaan kuu rajeynayaa. Hada wabillahi tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.